waxaan isleeyahay sheekh maxamed macalin lahu naxariisto runtii juhdigiisii iyo manhajkiisii dadaalkiisii iyo tadxiyadiisii iyo sabarkiisii ayadaa casharo ah oo in la barto u baahan muasasadaan insha allahu tacaala waxaa laga sugay waxaa kamid a turaadkii shiika iyo in nadawaad cilmi ah laga sameeyo manhajkiisii dacwadeed iyo juhdigii dacwadeed iyo guud ahaan saxawadii uu rabay inay hirgasho iyo ahdaaftii uu lahaa in dalkan ay ka xaqiiqdoodo meesha waxa marahayaan in si guud ahaan loo daraaseeyo waxyaalaha ay qabanaysa weynsha saas leeyahay muasada anushi maxaa macalin aniga xaal waxaa imid 72 maayo intii ka horeysay meelo kalaa jiri 72 markii xamar la keenay abay baa keenay allahu naxariistee wuxuu ii keenay dugsi sare inaan bilaabo wuxuu yihi darsigaan dhegayso oo tafsiirka ku taxan buu yihi sidii maa yeelay aba iska noqday darsigaas waxaan xasuustaa markaa cusbaa shiikoo surdiya sii kusiraya wuxuu yihi qisadii wajaha rajulun naas madina ninkiibu ma ka sheekeeyey marka macna cajiib aho balaaqi aho aada igu macaanaaday buu ku fasiray wuxuu yihi markii ninkii ula hadlay dadkii ay dileen qiila dkuli ljannata baa layidhi buu yihi ninkii waa la dilay lama odhan marku ninkii u hadlay oo kelimadii uu tuurtay uu yihi maxaan ku rahaa hor muslim baan ahay muumin baan ahay ninkii waa la dilay oo meeshii buu ku mayday oo balaaya ka dhacday oo kadib baa la aasay oo saasay noqotay lama odhane waxaa la yihi qiila dkuli ljannata jannada gal baa la yihi ninkii bimacnaa waxa weeyaan ninkan masiirkiisa laga sheekeynayaa iyo wixii dhacay meesha ku dambeynayeen iyo in wuxuuba isku xiran yihiinba macnahaas macaankiisa anoo dhansanaya baan darsigii ka baxay makhaayada aan ku jirnaa oo ku taala sheengani ayaa loo casho doontay anoo macnihii kusii fakaraya macaankiisa la yaaba lagu cusbaa shiika allahu naxariistee markuu ka baxo darsiga uu ka baxo maqaamka bacda cisha gabdhaha buu darsiga u akrin jiray masjid yar oo ku yaala korontada eenay ujeedkada ku yaala oo hadda aan filayo inuu yahay meel xooga laga xafriyana ma garanaayo hadda wadaad baa jawaan maqalada jooga meesha ayada hotel la oran jiray muxuu ahaa hotel la oran jiray raaxin jiray santara hotelkaas meel u dhow masjid ku yaala oo hadda filayo inuu yahay meel xoogaa ku yaalaan buu shiiku soo aadi jiray oo gabdhaha tafsiirka u akrin jiray caaishaw marka shiiku markaasu bilaabo wacyigelinta rag iyo dumarba ah waxyigaasi diinta shiiku runti waday waxay ahayd in insaanka soomaaliyeed uu diintiisa fahmo uu qur-aankan fahmo gaayada loo abuuray uu fahmo meesha laga yimi uu fahmo shiiku tafaasiil hoose ma geli jirine usuusha diinta iyo mafaahiimta caamka ah buu culayska saari jiray waxaa la yaab leh shiiku aada uga hadli jiray insaanka waxa uu yahay iyo waxa laga rabo iyo waxa loo abuuray iyo waxa suurahay malaa'igtiyo joogta oo cibaado hadday tahay hadday alla ku xirnaan tahay ayaa intee laga tegay ayaa wax insaan la yidhaha la abuuray oo loo dirsanayaa shaqo khilaafatullah fil ardi la yidhaaho insaankan malaa'igtiyo joogta inta la sameeyey waxa loo dirsanayo oo malaa'igtu haddii tahay cibaado iyo haddii tahay wanaagba ay ka badiso insaankaan muxuu yahay cajaa'ib muxuu yahay maxaa laga rabaa maxaa loogu talagalay marka runtii insaankan buu shiiku ka hadli jiray inuu hagaago haddii insaankaasi hagaago waxa la yaab lahaa soo baxaya oo ah adduun ilaahay rabo oo maxaa masaalixda adduunkana ay taalo tii aakhirana ay taalo malaa'igtu maslaxo aakhiro waa yaqaana cibaado waa yaqaana
لكن الدنيا آخر سوق قفلا مرات ما تفهم مرة ثانية تفهم الدنيا آخر سوق قفلا منفعة الدنيا ماذا آخر سوق قفلا محمد وراها ما عرفت الطمع يشهوه يمال يحوله وحاصل الحاجة إلى الله وضع إنه وذكرت إنسان كوي عن الماما هي إن شاء الله تعالى يا شيخ محمد علي الله نحرسته وقته عند أول بلابنا هو لا شيء كي ما عندنا بهذي ولا بتعرفه يقول بس إذا ما أصلا على يجي هي ولا سكران الساعة محمورة أما شغال قبل ذلك الساعة من هذا ما شيخ من ذا وكسر جيده كنت واحد سيد الرائع شيخ النوع عصا إن ديجان كيسي يمدغل يسي يميلها كلوبا ودرس كلاهي أي باهي دعوة كتيرتو أي باهي دين كتيرتو باهي كتيرتو حتى يتفهم حتى والله ولا شو ما كتيرين نبي إبراهيم مرت إلهي بريها هي هو يديس إلهي وقصص العروس يسا قصص الرسول وإلهي ويديس ما بريين إله ما عروس يوسف صار اختار داوية إله عروس يوسف إله وجدار يوسف موسى به ويقول ربنا وابعث فيهم رسولا الرسول هو أساس كنرشه وأساس كفهم إن الرسول فهمه إنسان بالتوصف أي أساس كيه كتير مركز أيام الداوين يا عروض صحيح اخترقوا كسر عموه الداوين كلا لكن موسى داوين عين وضع عين وضدك الشيان كشغل كرتاي وحويان وقفك وضدي أنبياء هي كشغل كلا مركب الصالح هذا أي سؤال وباهم هاي أما منطقة أصوب باهم هاي وعالم كل باهي هاي وشغل أنبياء ويان وشغل إصلاح أنبياء الرسول دراي كنتي على أساس كذوية مركب إنه دور على الولد ده إن شاء الله تعالى خارجين يا شيخ هذا تراب كيسي جهد كيسي iyo ujeedooyinkii sheekhu lahaa marka la dhibayo la xirahayo sheekhu uusan jixajixaynin sheekhu muxuu rabay sheekhu ummad fiican buu rabay ummad muslim buu rabay ummad diinta fahamsan buu rabay marka hadaafta ayaa si loo gaari lahaa insha allah tacaala lagu dadaalo baa loo baahan yahay haddana maanta joogaayo maanta anagaa joogna oo ummadda inoo baahan tahay inaan shaqada aan sii wadno insha allah tacaala marka sheekh allah naxariis muasasada hadii muasaso waqtigeeda timid weeye baahida way jirtaa waana dadaal doontaa waa rajeenayaa ka culumaan ee tabarteena insha allah taageerina biidni illahi tacaala